Wargeys ka soo baxa dalalka Carabta ayaa dhowaan sheegay inuu dagaal ka dhici karo xuduudda u dhaxaysa Itoobiya iyo Suudaan, kaasoo weliba sababi kara xaalad aad iyo aad u adag oo dhimasho iyo dhaawacba leh. Dagaalkaas oo qorayaashu weliba ay ku kala aragti duwan yihiin oo ay qaar leeyihiin wax dabada ka soo riixaysa waddanka Masar la yidhaahdo. Sababtoo ah bay leeyihiin Masar iyo Itoobiya waxaa dhex taalla xaalad aan hagaagsanayn, taasoo muran ka taagan yahay webiga Niilka ee labada waddan xidhiidhiya. Taasoo ay Masar sheegtay inaanay dani ugu jirin Itoobiya arrimaha biyo-xidheenka ay ka wado dhulka, halka ay qorayaasha kalena ay qabaan arrintaasi ka duwan. Waxaanay sheegeen inay Itoobiya ka faa'iidaysanayso kaalinta daciifnimada ee dalalka Carabta ee ku aadan wax ka qabashada arrimaha webiga Niilka ee xurgufta dagaalka ka dhaxaysa Masar iyo Itoobiya. Xaaladahan ayaa la sheegay inay dhacaan waqti kasta oo roobabku ay soo da'aan. Dad badan oo reer Suudaan ah oo ah kuwa wax ka qora amniga ayaa waxay sheegeen inay habboon tahay in Masar iyo Suudaan ay samaystaan arrimo xulafaysi. Arrintaasoo u muuqata inay ku soo beegantay waqtigii ugu habboonaa. Wadahadallada ka socda Washington ayaa u eg iyaguna kuwa guuldarraystay oon marnaba la qadarinaynin, iyo weliba dalalka Carabta oo ah iyaguna kuwa aan la isku halayn karin. Axmed Jalaal waxa uu wargeyska ka soo baxa Suudaan ee Al-Rakuuba u sheegay inay dadka qaarkood faafinayaan hadalla aanay waxba ka jirin, isagoo sheegay inay Masar ku taagan tahay go'aankeedii hore oo ahaa inay Masar ay si toos ah Itoobiya ula dagaalami doonto haddii ay Itoobiya kala bixi weydo faraha webigaasi Niilka. Isagoo sheegay in dadku ay si toos ah isaga dhiga tirayaan weerarka ay Itoobiya ku soo qaaday saldhigyada Suudaan. Waxaanu ku soo gabagabeeyay waxay duulaan ku yihiin dhulkeena quruxda badan, waxay doonayaan inay ka taliyaan meelaha inagu ayn maanta ka talino. Haddaba marka la isku soo wada duubo halkaasi waxaa ka muuqata inay xaalad dagaal ay soo socoto taasoo u dhaxaysa Masar, Suudaan iyo Itoobiya. Itoobiya iyo Masar waxay geed gaaban iyo geed dheerba ugu taagan yihiin badbaadinta webiga Niilka, iyo weliba dhaqdhaqaaqa Itoobiya ku raadinayso biyo xidheen inay samayso. Fadlan channelka subscribe saar si aad ula socoto wararkii ugu dambeeyay ee xiisadda ka taagan dalalkaasi aynu soo sheegnay. Fadlan fikirkaagu waa noo muhiim. qaybta commentiga nagu reeb wixii su'aal aad qabto.